Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada wararka caalamka idinkaga imanaya telefishinka caalamiga ee Somali Channel xaruntiisa dhexe ee magaalada London. Waxaana idinla socodsiinaya wararka anigoo ah Cabdullaahi Xuseen Maariya. Wararka aanu idin haynana waxa ugu dooron madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah oo sheegay in xukuumadda cusub ee la soo dhisay looga fadhiyo in ay wax ka qabato ammaan darrida baahsan ee ka jirta Soomaaliya siiba magaalada madaxda Muqdisho iyo waliba xoogsatada ka xamaalata dekada weyn ee magaalada Muqdisho oo ka codsaday dawladda ku meel gaarka ah in ay soo farageliso khilaafaadka ba'an ee hareereeyay iyaga iyo maamulka dekada. wasaaradda caafimaadka dawladda ku meel gaarka ah oo sheegtay in ay baaritaan ku samayn doonto waxna ka qaban doonto raashin iyo cuntooyin dhacay oo dhawaanahan dalka la soo galiyay kaas oo si ba'an u saameeyay shacabka wadanka Soomaaliya iyo waliba maamulka dooxada Shabeelle ama maamul goboleedka dooxada Shabeelle oo kulan ku yeeshay magaalada Ceelgaal ee gobolka Hiiraan kana warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay. wararka caalamkan idin haynana waxa ugu dooran in ka badan 40 qof ayaa ku dhintay amaba ku geeriyooday boqolaalna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii laba qof oo nafti horayaal oo isa soo miinay ay galeen xafiis shaqada dawladda hoose ay ka socotay ee magaalada Mohmon ee wadanka Pakistan. taas magaaladaas oo 175 mayl xagga waqooyi galbeed ka xigta caasimadda Islamabad. Iran oo la shiraysa nuclearka caalamka wadamada ugu waaweyn sida Faransiiska, Ingiriiska, Mareykanka iyo Russia iyo waliba Germany. intaas waa wararkii u door corona haatan iyagii fidsan. madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ayaa ku dhawaaqay in looga fadhiyo xukuumadda cusub ee uu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo in ay wax ka qabato ammaan darrida baahsan ee ka jirta Soomaaliya siiba magaalada Muqdisho iyadoo laga filayo buu yidhi in ay xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan ula wareegto gebi ahaanba magaalada Muqdisho iyadoo adeegsanaysa awoodeeda military. warkana waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black. kadib kulan uu maanta madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo golihiisa wasiirada kadib dhamaystir dhaarin qaar kamid ah wasiiro ku xigeenada xukuumadda cusub oo iyagu ka maqnaa dhaarintii hore ee xukuumadda ayuu madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah waxa uu ugu baaqay in xukuumaddan cusub ay fuliso muddo 3 bilood gudahooda howlihii loo idmaday uu ka tilmaamay soo celinta amniga iyo kala dambeynta dalka. madaxweynaha iyo golaha wasiirada oo iyagu muddo saacadaha kulan albaabada u xiran yihiin yeeshay saxaafaduna ay dibajoog ka ahayd ayaa waxaa saxaafadda kulankaasi u faahfaahiyey afhayeenka madaxtooyada isagoona sheegay in kulankani uu madaxweynuhu la qaatay xubnaha wasiirada ay ahayd dhiirigelin ku aadan in la dardargeliyo hawsha adag ee laga sugaya xukuumaddani uu hogaamiyey ra'iisul wasaare Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa iyadoo ballan qaaday in muddo 3 bilood ay sameynayaan tilaabooyin cadcad oo wax kaga bedelayaan xaaladda dalka gaar ahaan tan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. inkastoo ay xukuumaddani ballan qaaday wax ka qabashada xaaladda amni ee iminka uu marayo dalka uuna madaxweynuhu ku booriyay arrintaasi ayaa haddana shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya oo Muqdisho oo halka ugu badan ee colaaduhu ka aloolsan tahay waxa ay walwal ka qabaan waxa ka dhalan kara talaabooyin waliba oo dhalin kara dagaalo horle oo ka horto magaaladani aysan dagaaladu ka hakan ee Muqdisho. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black, Somali Channel, Muqdisho.